أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعشر كيني كوبنا وكسب سنة كيف نخشع في الصلاة فدقي صدحي طبناد ويان موضوعي نسعد وها كيف نخشع في الصلاة سيدي بينو صلاة داينو إلهي أتوكنينو قلبي نوسو جيدنا waxaanu maanta ka warrami doonaa ikhwata iimaan cadowga koobaad ee shaydaan la yiraahdo oo salaada inaan khushuucno inagala dagaalamaya iyo sida looga taxadari karo ayaynu wax ka tilmaamaynaa waxaad ogaataa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu inoo sheegay idaa udina walla shaytaanu walahu turaadun aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam nabi wuxuu marka la aadamo shaydaanku uu jeestaa uu carraa isagoo nafsi deynaya waaweyn oo sanqar leh si uu soo aadanka u maqlin marka aadanka la dhameeyo ayuu soo laabtaa fa idaa thuwiba hadii marka la aqimana adbara walahu turaadun wuxuu carraa isagoo nafsi deynaya marka salaada la galo ayuu soo noqdaa wuxuu bilaabaa dagaalkiisii ugu dambeeyay waxa uu soo galaa dadka adoomada tukanaya dhexdooda waxa uu ka soo galaa lugaha iyo meelaha marka furajka daldaloola wuxuu dhaqdhaqaaqa markiiba wuxuu gaaraa qalbigooda maxaa yeelay inna shaytaana yajri min ibn aadam majra dam shaydaanku bin aadanka wuxuu ka raacaa meelaha dhiigu ay maraan oo wadnaha iyo xididada dhiiga ayuu shaydaanku raacaa halka markuu istaago markiiba wuxuu abaarayaa wadnaha wuxuu markaa bilaabayaa shaqadiisii wuxuu oranayaa udkur kada waxa xusuuso lacagtaad meesha dhigtay xisaabtu sidaa ma ahayn oo gaarigii halka maadan dirin islaamtu maxay sidaa ku lahayd kiira maanta lacagtii uu ka sugayaa macallinkii bishii waa dhamaatay guriga kiradiisii waa laga rabaa hebel muxuu sidaa ku lahaa oo maxaad saa ugu jawaabi weyday maxkamadii maxaad saa u dhihi weyday lecture buu ku furaya afartii ragcadeed aad tukanaysay waxay ku dhamaanayaan adoo aan marqura qalbigaaga ilaahay tabaaraka wa tacaala marqura xusuusan farxadiisii iyo guushiisii isagu markaa waa gaadhay waayo hadafkiisii iyo ujeedadiisu waxay ahayd xataa waxaa dhici karta inuu mararka qaarkood ku xusuusiyo wax dani kuugu jirto oo laga yaabay isagoo wax ka weyn ka luminaya in wax dani kuugu jirto oo kuugu sheego xasan al-basri baa waxa u yiminin wuxuu yiri niyo alaab iga luntay meel walbana waan ka raadsho waan ka quustay waxa laala waxaan sameeyana garan maayo maxaa yeela wuxuu yiri ordo laba ragcadood tuko waxaad niyeysataa inaadan qalbigaaga wax adduunyo aadan soo gelin labada ilaahay tabaaraka wa tacaala kaliya qalbigaaga khushuucsiiso ninkii mar allaali markuu labada ragcadood galay oo uu ku tala galay inuu qalbigiisa ilaahay kaliya mooy cid kale aan ku xusuusan shaydaankii ordaya waa kan hadda maanta oo dhan muu dafdaflaa meel walba waa maray waa quustay markaasuu alaabtii soodii halkaa dhigay soota halkaa taala waa runtii markii hore waa kaga fadhiyay laakiin hadda inuu alaabta helo adduunyo ah iyo inuu qofkani salaada ay ka fasahaado ibliiska iyo shaydaanka waxa uu wanaagsan xaqiisa inuu adiga shaydaan inuu salaada ka xumeeyo sida daraadeed baa waxa laga yaabaa mararka qaar kood inuu ku laqimo gar biyo kama dhibcaana oo hadaad la soo fadhiisato qolaha dadka aad ishaysaan xaraf aad banaanka u dareerinayso xaraf aanu ka xumaanay buu ku laqibaya oo ma taatiraadi
oo qodobkaa cuskatid oo halkaa ka abaartid oo daliilkaa keentid oo saa iyo sidaa yeeshid ujeedkiisu waa maxay markuu waxaa kuu dhisayo waa inuu tan aad ku jirto oo salaada inuu ku dhaafiyo sidaa daraaddeed ayaa ilaahay wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashaytaan alrajiim marka aad qur-aanka akhriyayso ilaahay waxaad ka magan gashaa shaydaankii naxariista laga dheeriy xaggiisa marka qofku intuusan faatixada bilaabin ugu horreyn wuxuu odhanayaa acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim dhowr siiqaa ku soo aroortay inuu qofku yidhaahdo acuudu billaahi inuu yidhaahdo acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim inuu yidhaahdo acuudu billaahi asamiici alcaliimi min ashaytaan alrajiim inuu ka sii dheereeyo weliba waxa weeye culimmada qaar aad u jeclaysteen oo ah inuu qofku yidhaahdo acuudu billaahi asamiici alcaliimi min ashaytaan alrajiim min hamzihi wa nafkhihi wa nafathihi saddexdaa qodob inuu isku daro ayaa waxay tahay ta ugu wanaagsan oo lala yimaado acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim ama acuudu billaahi asamiici alcaliimi min ashaytaan alrajiim ama acuudu billaahi asamiici alcaliimi min ashaytaan alrajiimi min nafhihi من نفخه ونفثه من نفخه من همزه ونفخه ونفثه وهذا الله كما ينقليسو شيطانك وسواسكيسا والديسا قبيقيسا وحيابه وكبسو أفوفايو هاوشاسي وحي الدواء قطعي قفك تكنيا إنانو شيطانك سويرين علماء وحيلين قفكو رقعات كستا مركو فاتحة آخرية أيوه haddii uu dareensan yahay waswaas inuu hayo wuu la iman karaa haddii qalbigiisu wanaagsan yahay iimaankiisu fiican yahay ragcadda ugu horraysaa kaaga filan haddii kalese markastaad faatixada akhriyayso waad ka horraysiinaysaa ayay markaa culimmadu ay leeyihiin weeye waxaa dhici karta mararka qaarkood shaydaanku isagoo aynu ognahay dhagartiisa meesha ugu daran ay tahay salaada ayaa waxaa dhici karta inaanu qofku garanayn shaydaanka gaarka ee salaada ka shaqeeya salaada ibliisyada waxaa u qaabilsan shaydaan magaciisa la yidhahdo khanzab ismu shaytaan alladii yuwaswisu nnaasa fi salaa ismuhu khanzab magaciisa khanzab baa la yidhaahdaa sida nebiga calayhi salaatu wasalaam yani markuu yimi saxaabiga loodhan jiray abilcaas wuxuu rasuulka allow yaa rasuul allah ina ashayطaana qad xaala baynii wa bayna salaatii wa qiraa'atii yalbisuhaa calaya rasuulka allow ninkii shaydaan ahaa wuxuu kala xijaabay oo na kala xiray aniga iyo salaadayda iyo qur-aanka aan akhriyayo wuu iga khaldaya oo wuu waswaasinaya markaasaa nebigu wuxuu ugu jawaabay fiiri qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi daaka shayطaanun yuqaalu lahu khanzab kaasi waa shaydaan magaciisa khanzab baa la yidhaahdaa faidaa axsastahu haddii aad dareento in lagu hayo xumaddii shaydaanku inay ku hayso dee dareys adoo meel kale u fakay wax kale ka sheekaynaya salaadna ku jira haddaad dareento fatacawad billaahi minhu ilaahay tabaaraka wa tacaala ka magan gal xaggiisa waxa weeyaan waftul calaa yasaarika alaaan saddex jeerna waxaad waxa weeya u neef tufataa ama u candhuuf yar tuftaa dhinacaaga bidix weeyaan markaa nebigu wuxuu yidhi faidaa facalta dalika adhaba allahu wuxuu yidhi haddaan markaa yani sidaas samaysan waa kaa kaxaynaya saxaabigii markaa wuxuu yidhi hawshii baan sameeyey markaan salaada aan dareemo shaydaankaan iska naaraa si yaroo tartiibana dhinaca bidix baan u afuufaa buu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala waa iga kaxeeyey wakadalika nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay inuu qofku marka uu salaada uu ku jiro inuu markaa shaydaanku uu soo weeraro kadibna uu markaa uu qofka xusuusiyo waxyaabo badan arrintaa nebigu wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam ina axadakum idaa qaama yusalli qofkiin marka uu salaada isu taago jaaa ashayطaanu shaydaanka ayaa yimaada falabisa calayhi ay khalata calayhi wuu ka khaldaa salaatahu washakakahu fiiha salaadii buu ka shakiyaa intee tukaday ma afar baa ma laba xataa laa yadri kam yusalli
ilaa uu garan waayo inta uu tukanaayo markaa nebigu wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam faidaa wajada dalika axadukum haddii qofkiin arrintaa uu dareemo in salaaddu ay ka khalkhashay falyasjud sajdatayni wahuwa jaalisun had sameeyo laba sujuudood isagoo markaa fadhiya atixiyaadka waa sujuudu sahwiga weeyaan waxaa koo nebiga calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay qofka waxaa laga yaabaa isagoo salaada ku jira inuu shaydaanku yidhaahdo neef baa kaa timi ama kaadi baa kaa timi inta badan wuxuu u badan yahay inuu ruuxa ku dhaho oo weesadiiba kaa jabtee khalaasba taa markaa maxaa lagu dawaynayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi idaa kaana axadukum fi salaa qofkiin hadduu salaada ku jiro oo fawajada uu dareemo xarakatan fii duburihi yacni dhaqdhaqaaq dabadiisa hadduu ka dareemo oo u is iraahdo markaa axdaa am lam yuxdith toloma waxbaa kaa soo baxay neef ah yacni ma dhuusaa kaa timi oo kale mise wax kaama iman nebigu wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam faushkila calayh markaa qofku uu shakiyo falaa yansarif yaanu salaada ka bixin xataa yasmaca sawtan ilaa uu cod caadiya maqlo baasha codkeedii oo aan shaki lahayn ilaa uu maqlo aw yajida riixan ama urkii bahasha uu dareemo marka halkan waa meesha la yidhahdo alyaqiinu laa yuzaalu bishaki waa in badan baad arkaysaa qof leniyow mar allaale markaan salaada galo waxbaan dareemaya inay iga soo baxeen markaasaan baxaya waan soo weysaysanaya haddana markaan salaaddii xidhaan dareemaya waxbaa iga yimi oo kale waan soo weysaysanaya qofkaasi marka dambe muxuuna gaarayaa inuu salaadaba ka tago yidhaahdo dee ma uu tukan karaaba qofkii noocaasaa nebigu waa daweeyey calayhi salaatu wasalaam waxayna dawadiisu noqonaysaa inaanu salaada ka bixin ilaa laba shay mooyaane haddaad cod maqasho weliba culimmadu waxay leeyihin codkaa waa inaad hubtaa inuu adiga kaa yimi waayo waxa laga yaaba inuu dariskaaga ka yimi hadduu doono waxay dhici karta qof dariskaaga inuu waxaan ka yimi way dhici kartaa inuu adiga kaa yimi waa inaad hubsataa marka koowaad haddii aad cod hesho dee khalaas waa yaqiin haddii aad urkii dareento oo waxa weye in wax kaa yimaadeen iyo ur aad dareentana waxna waa dareentay inay kaa soo baxeen urkiina waa ku qaaday khalaas weye markaa culimada qaar waxay leeyihin haddii adiga waxba aanay ku urin oo dadka qaar baa urba lahayn ilaa culimada wax kasta way ka hadleen adigu urba mardastankii baa kaa tegey waxna waa dareentay inay kaa soo baxeen see yeelaysaa dadka dariskaagaad yara khaawisaysaa bay yidhahdeen haddii dadka dariskaaga arkayso iyagoo sidaan yar leh oo marka xaaladdu ay yar waxaad ogaanaysaa markaa in wax kaa soo baxeen waa marka adigu aadan sankaagu aanu shaqaynayn oo markaa urtu ay kaa tagantay waxaan ku soo gabagabaynaynaa mawduucaas oo runtii mawduuc aad iyo aad u khatar badan nebiga calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaas baa wuxuu leeyahay rasuulka waxaa la weydiiyey nin salaada ku rafaadsan mar allaaliya markuu salaada galo yuu waxa weeyaan salaaddii ka baxaya wuxuu soonaya waxbaa kaa baxay wasadii waa kaa soo jabtay nebigu wuxuu yidhi sal lla slam ina ashayطaana ya'tii axadakum qofkii shaydaanku waa u yimaada wahuwa fii salaatihi isagoo salaadiisa ku jira muxuu samaynayaa xataa yaftaxa maqcadatahu ilaa uu dabadiisa furo bal shaydaanka codinimada safiir markaasaa fayukhayalu ilayhi annahu axdaa walam yuxdith qofkii wuxuu moodsiinayaa in wax ka yimaadeen waxna kaba iman faidaa wajada axadukum dalika qofkiin hadduu sidaa dareemo falaa yansarifanna yuusan bixin salaada ka gadoomin xataa yasmaca sawta dalika biudunihi ilaa uu arrintaa codka soo baxay dhegihiisa ku maqlo aw yajida riixa dalika bianfihi ama arrintaa urkeeda uu naftiisa markaa sankiisa uu ku dareemo wey ikhwat aliimaan markaa mawduucaas xaqiiqatan shaydaanka ku saabsan si uu salaada u fasaadiyo waa meesha ugu daran lana rabo in ilaahay laga magan galo lagana feejignaado lana ogaado shaydaanku inuu cadow u yahay qof kasta oo muslima oo ilaahay u jeedo tukanaya waa darsigeennii koobnaa ee kayfa nakhshacu fi salaa iyo xalqadeennii 13aad wasala allahuma wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamed